waxa aan shaaha inaan iibiyo ugu adeegi jiray tukaan si aan qarashka iga soo gala tababarkayga kubadda cagta ugu bixiyo. Hadalkani waxaa yidhi Leo Messi oo ah mid ka mid ah xidigaha ugu wanaagsan ee kubadda cagta soo mara, kaasoo ku guulaystay biladaha ugu badan, hanti badanna ka sameeyey kubadda cagta iyo magacba. Waxaan u shaqo doontay warbaahinta All Indian Radio, balse way i diideen maxaa yeelay codkayga ayaa weynaa. Orahdani waxaa yidhi Amitabh Bachchan oo ay Soomaalidu u taqaano Cali Dheere. Maanta waa ganacsade, jilaa iyo milyaneer haysta hanti kor u dhaafaysa 400 milyan oo dollar. Ma aanan dhammaysan xitaa waxbarashadeedii jaamacadda. Waa Bill Gates, nin muddo badan soo ahaa hantiilaha ugu hodansan dunida, maantana ah shakhsiga labaad ee dunida ugu hodansan, deeq-bixiye iyo maalgeliye caafimaad oo waxtar badan sameeyey, aas-aasaha iyo shareholderka ugu weyn Microsoft. Waxa aan guul daraysay 9,000 oo jeer, sidoo kale 26 jeer ayaa liigu aaminay inaan tuuro laadka guusha ee ciyaarta, balse waan la gafay. Waxa aan guul daraysay in badan oo ka mid ah noloshayda, taasina waxa ay sababtay inaan guulaysto. Kaasi waa Michael Jordan, ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee abid soo mara taariikhda kubadda kolayga Mareykanka, ruux qaatay bilado aad u badan, ahna maanta maalqabeen sumcad ku leh caalamka. J.K. Rowling oo qorayada dunida ka caan ah, 12 jeer ayaa laga diiday in sheekooyinkeeda la daabaco, iyada oo weliba hooyo ah oo ninkeedii kala tageen. Waa qoraaga taxanaha Harry Potter oo 100 milyan oo jeer la daabacay, lagana sameeyey aflaan badan oo bilaayin dollar soo xaraysay. Taasi waxa ay dhaxalsiisay inay noqoto bilyaneer. Haddaba maxaan ka baran karnaa sheekooyinkan? Waxa ugu muhiimsan oo aan ka baran karno waa hal cashar oo ah ha isdhiibin. Si kasta oo xaaladaada kugu adkaato, guuldaro kasta oo aad la kulanto, si kasta aad ula kulanto diidmo qeexan, waxaan ku leeyahay ha isdhiibin, guusha kaama foga.